qamar suugaan wuxuu yidhi anigu waaban isduray maanaaba dhalaba anigu maanaa dhalo ileen waaba isduray yo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga waan salaam melba adduunka ka joogtaan oo walaalkiin shaafi joore janalada daawanaysaana waa jooreyare iyo shaafi joore maanta barnaamijkaas baan rabaa inaan ka hadlo iyo qamar suugaani iyo xaqiiqada dhabta waxa ay tahay qamar suugaani miyuu sameeyey falka lagu soo eedeeyey gabadha miyuu uur u yeelay mise sida dadka qaar ay leeyihiin uurka asaga ma lahan oo dadka asaga difaacayo baa saxanoo isaga ma lahan uurka codku waa la hagaajiyey se xaaskiisa ma nin kala guursaday ma niman kala guursaday xaqiiqooyinkaasoo dhan baan halkan idinku hayaa asxaabta qaaliga ah intaan u gudagelin barnaamijkeena fadlan hadaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar muuqaalka like garee share dhe asxaabtaada la wadaag aada iyo aad baad mahadsantihiin waan soo laabtay hal isbuuc kadib muuqaal cusub bal haddii aan ku horumarno codka laga duubay qamar suugaani ee gabadha soo wacayso bal ila dhagaysta. horta ugu horreynba qofta si fiican u yaqaanaa iyo waran hani uu dhahayaa bal inoo wada aan sii dhegaysano. wuxuu dhahay boraman joogaa jigjigaanan kusii socdaa macnaha safar uu sii yahay jigjigu u sii socdaa. gabadha way sheegi laadahay walaal dhibaa jira ee leedahay hadalkiina uu ku dhegan yahay asagana wuxuu leeyahay maxaa jira bal inoo sii wada. waxay tidhi walaalo uur baan leeyahay. wuxuu weydiiyey waxay dhahdaa uur baan leeyahay yaad u leedahay u dhahay isagaa weydiiyey markaase waxay ku tiri adiga bal wuxuu ku jawaaba aragno. waa tii iigu qosolka badneed anigu maanaaba dhalo dhahay ninkani maba dhalo warkayga dhegeysadee maba dhalo dhahay u fiirso ninkani muusan inkirin gabadhaas inay wax dhexmareen soo ma jeedid inay wax dhexmareen muu inkirin qoftana wuu aqaanay teleefonka ku qabanaya hadaladiisa ka dareemayseen mana uu inkirin wax mana dhexmarin ma dhihin qoftani wax way dhexmareen wuxuu ka bilaaba hadalka anigu maanaaba dhalaba anigu maanaaba dhalow ka bilaabay bal inoo sii wada muuqaalka. waxay tiri habeenkii dhoweed khalad baan sameynay caadadii baan iska waayey sidaas darteed dhakhtar baan tegey si aan u ogaado waxa iga haysto caadada camal sidaas darteed dhakhtarkay u tagtay wuxuuna usoo sheegay inay uur leedahay. u fiirso hadalkaas qamar suugaani haddana muxuu ku jawaabi doonaa inoo wada. hoogaa wuxuu dhahay bal walaalo ishubso anigu waan ismuday hadalkaas u fiirso anigu waan ismuday buu taagan yahay qamar suugaani oo macnaha uu ismudayo maba dhalo macnaha inuu dhalin ka xijaabtay buu cirbaduu dhakab isku siiyey weligey waxaana maqlin nin ismudayo waa kana ii horee bal ina wada.
wuxuu taagan yahay dhinacaas Ethiopia ku sii socdaay bal isubso camal dee nin durana ahay taagan yahay khamiis suugaani gabadha sida maqlayseen on kula soo hadlo u dhahay sidaasayna ku kala jarteen telefoonka inta aniga aan ka hayo codkaasi kolley horta haddii aan arrintaasi si fiican u faahfaahiyo gabadhu codkan qof uu adiga walaacsan dee inuu cod duubo kuma dhiirinayo oo cod duub iyo waxaasi kuma dhiirinayo kolley dad bay la tashatay dadkii baa kula taliyey inay cod duubto macnaha inay koolka recordingka furto ay duubto codkiisa isagoo inkiraya hadalkaas waxaa laga dhadhamin karaa inay tahay sax codna lama samayn karo ma cid baa codkiisa codkeeda koobiyeyn karta macoda mixer qof leey lagu samayn karaa kule ilama aan aniga in la samayn karo macquul aniga aan hore u maqal laakiin ilama ahan midda xigta dhanka xaaskiisa dad baa inta beejis samaysteen waxay kusoo qorayaan inay xaaskiisa nin guursatay iyo nin kale guursatay iyo waxaas waana been abuur xaaskiisa koley way isku buuqsan yihiin taasaan been ahayn oo way isku buuqsan yihiin xaaskiisa ugbaad aragsan laakiin ma jiraan waxyaaba kale la sheegaya nin kale aroostay iyo wax kale aroostay haddii aan soo laabto tan qamar suugaani mid kaloo ku cadaynaysa in uu qamar suugaani arrintan ka dambeeyey aynan ahayn been abuur hadda ka hor markii wax ku dhacayeen markii jugta ku dhaceysay adiga dadka ay dilayeen kulley ma garanayo arrintan iyo arrintaas inay xiriir leeyihiinna waa laga yaabaa oo jugtaas iyo arrintan ay xiriir leeyihin waa asaga qarinayay oo askar iyo wax tume ay jirin oo dee dad ay tumeen ama askar usoo adeegsadeyna iyo si usoo adeegsadeyna ilan qof la qabtay inta la tume layskama soo daynaye laga yaaba in xiriir ku leedahay taasi xaqiiqo uma hayo midaan idin sheegi rabay waxay tahay arrintaasi waxaa kasoo hadlay dad caan ama fanaaniin arrin kale hadda ka hor asagii xaaskiisa adikow dadku intay isku baran ka hor maray muuqaal isla soo duubeen dad badan oo difaacayo fanaaniin badan oo difaaciisa baa timi oo leh ninkani dee xaaskiisa waaye labada qofi way isqabaane ka leexda bal hadda ma maqashay weli cid qof fanaana ka soo hadlay ama qof aqoon u leh oo ka soo hadlay difaacaya may taasna waxay ku cadaynaysaa in arrintani ay caddahay dee cid wax cad oo facshiro oo cid dadka dhan ay ogyihiin ninkan inuu sameeyey sidee lagu difaaca isagaa difaacayo marka wax walba ay cad yihiin qamar suugaani inuu arrinkaas sameeyey haddii ay arrintani aad dooda ka qabtid isa soo baar soo ogow xaqiiqada waxay tahay gabadhaana cunuga dee haddiiba adigaa dhashay ilmahagee yihiin la qabade kolley gabadhani adiga ceeba usoo jiiday familkeeda laga yaaba faquuq inay kala kulanto dee niyo isqabo asxaabta qaaliga muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay arrintan wixii kasoo kordhana waan idinla soo socodsiinayaa halkaanaad kala socon doontaan intaan kulmi doonno muuqaalka xiga waa anigoo idin leh sheerta liketa subscribe-ka commentiga ra'yadiina inta waa u baahannahay nagu taageera waana soo soconaa wax badanna waa soo wadnaa aniga asxaabteeda intaan kulmi doonno muuqaalka xiga sidaas iyo nabadino ciao